Assalaamu calaykum. Saan wada ogsoonnahay qalbiyadeennu waa sidii weel oo kale. Weelkaasina waxa lagu shubo unbuu qaadaa. Haddii aad qalbigaaga ka buuxiso dikriga Ilaahay iyo sunnada Nebiga sallallahu calayhi wasallam, qalbigaagu waa mid caafimaad qaba. Haddiise aad qalbigaaga shar oo dhan, qudhun nooc kasta uu yahay aad ka buuxiso iyo heesiye waxaan loo joogin, ogow qalbigaagu waa mid xanuunsanaya. Nebiguna sallallahu calayhi wasallam waxa uu dhahay, jidhka waxaa ku jirta waslad yar. Wasladaasi haddii ay hagaagto, jidhka intiisa kale dhanna waa uu hagaagayaa. Haddiise ay wasladaasi xumaato, jidhka intiisa kale ka soo hadhayna waa ay xumaanaysaa. Wasladaasina waa qalbiga. Wuxuu dhahay Ibnu Cabbaas radiyallahu canhuma, khayrku ama xasanaadku qofka waxay ku reebaan 5 raad: nuur wejiga ka fuula, iyo qalbiga oo sidoo kale nuura, risqiga oo waasac looga dhigo, awood dhanka jidhka ah, iyo qalbiyada dadka oo jeclaada. Xumaantuna sidoo kale 5 raad ayay ku reebtaa: diif wejiga ka hanata, qalbi madoobaad, daciifnimo dhanka jidhka ah, shiidnimo ama risqiga oo laga nusqaamiyo, iyo quluubta dadka oo naca. Sidaa aan kor ku soo xusnay, qofka wanaagga sameeya, Allah subxaanahu jalla fi culaa wejigiisa nuur ayuu yeelaa, barakooyinkiisana wuu siiyaa, arsaaqadana hor iyo dacalba wuu ka dhigaa, dadkuna waa ay jeclaadaan. Wuxuu noo sheegay Nebigu sallallahu calayhi wasallam, markuu Alle jeclaado addoomihiisa ka mida, Jibriil ayuu u wacaa, uu ku dhahaa, Jibriilow, addoonkayga hebel waan jeclaadee, adiguna jeclow. Saasuuna Jibriil ku jeclaadaa, malaa'igtuu u bandhigaa, malaa'igtuna saasay ku jeclaadaan, iyo ehelka samaduba. Ugu dambayna jacaylkaas dhulkaa loo soo dejiyaa, oo ehelkii dhulkuna saasay addoonkaas ku jeclaadaan. Dembiguna waa mugdiyo uu qofka sameeyaa dhex socdo, waxaanad ka akhrisan karaysaa wejigiisa. Waxba yaan rag iyo dumar lagugu sirin meekaabka kaamirada lala soo hor istaagayo. Dadka macsida caanka ku ah waxay ku nool yihiin nolol ciriiri ah oo bili-aadan ku noolaan karaynin. Xaqiiqdaana saas ah, waayo Allah jalla fi culaa ayaa dhahay, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. qofka ka jeedsada xuskayga wuxuu ku noolaanayaa nolol ciriiri ah. Lacagtuu doonaha haysto, milyaneerkuu doonaha ahaado, caankuu doonaha ahaado, wuxuu ku noolaanayaa nolol ciriiriya. Maalinta qiyaamahana waxaa la soo saarayaa isaga oo indhala, walciyaadu billaah. Jacaylka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nuur. Nuurkaasna ma helo qof caasi ahi. Waxaa hoogay kuwa qalbiyadoodu qallaleen markay xuskii Ilaahay ka tageen. Qalbiyadaas oo ay dabooleen, ay madoobeeyeen dembiyadu. Wallaahi xanuun ka weyn oo uu qof la daris yahay ma leh. Wuxuu caasiyey allihii qalbigiisa hayay oo uu ku kufriyey. Kaasi waa gaalkee. Ka mu'minka ee caasiga ahna wuxuu yidhi Allah jalla fi culaa, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. qalbiyada wuxuu Alle u abuuray waa daacad, naftana wuxuu Ilaahay u abuuray inay xalaal miirad noqoto. Hadduu qofku dembiye ku dhaco oo uu isla markiiba ka toobad keeni waayo, qalbigiisu uu xumaanayaa, wuu fasahaadayaa, naftiisuna waa ay isbedelaysaa, isagii Ilaahayna waa la kala qarinoo waa la kala fogeynayaa. Waxaase farxad ku nool kuwa qalbiyadooda iyo nafahooda ka buuxiya wax Alle raali gelinaya, kama xiisa dhigaan habeen iyo dharaar. Hilowgooduna waa mid hilowga ay u qabaana waa mid xawli ku socdo, marba marka ka dambeysa sii kordhaya, ee ma aha mid isdhimaya. Waxay raadinayaan raali ahaanshaha eebbahooda, waxayna ka cabsanayaan cadaabkiisa, waxayna rajaynayaan naxariistiisa iyo jannadiisa. Qalbiyada dadku labadaasunbay ka kooban yihiin, ee adiga ayaa iskaranaya labadaas midka aad tahay. Haddii aad tahay ka qalbigiisu wanaagsan yahayna, halkaa ka sii wad, Ilaahayna ha kula garab galo. Haddii aad tahay ka qalbigiisu silloon yahayna, Ilaahay u toobadkeen,
nebigu sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay toobadda waxa uu dhahay qofka toobadda wanaagsan keenaya, qofka ilaahay toobad wanaagsan inuu u toobad keena raba waa inuu ka murugoodaa dembiyadii uu hore u samayn jiray, waa inuuna ilaahay u cudur daartaa uunan dib ugu noqonin wixii uu horey u sameeyey. attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lah, qofka dembiga ka toobad keenaana waa sidii qof aanan dembiba lahayn. Allah ha inaga dhigo kuwa ilaahay u toobad keena ee uu Allah u dembi dhaafo, toobadoodana aqbalo. aamiin aamiin. muuqaalkan intaas ayaan ku ekaysiinaynaa. intaan kaga kulmayna muuqaalkan muuqaal la mid ah, waxaan idinkaga tegaynaa nabadii ilaahay dushiina ha ahaato.